waxaan rabaa halkaan inaan uga faa'iidaysto ka qasbanaya waliba walaalaha Somaliland iyo Puntland waliba Somaliland waxaan leeyahay cod dheer ku leeyahay haysmahadinina xamar waxa dumiyay cuqubadii uu Hargeysa ka galay waxaan xasuustaa ninka raba inuu guri dhisto ama raba inuu wax tabcado in la yira iyadoo la dhihi jiray markii adinka leedin burburinaya dhibaatada idinku socotay siyaasaddu ay xagal daacisay waxa la dhihi jiray war miskada maxaa dubay iyo ku falaysaa meeshan waxa weeye jiingada Hargeysa iyo alwaaxda looxaanta laga soo qaadaad guriga ku dhisanaysaa ummadda isdaba qaban weyday koonfurta waxa dumisay cuqubadiini waxaan xasuustaa shaqaalaha waxa la dhihi jiray kuwan xabadu keentaya gabdhahan xabadu keentaga beesaha laga dhigto war waxaan idin leeyahay aqliga shaqay waayay shalay koonfuru shaqay waayay wax idin ku dhacay haba yaraatee marka loo fiiriyo dhibaatada ku dhacdayna wax idin gaaray malaha xaqiiqatan koob iyo 20 sano shacabka Soomaaliyeed oo koonfurta ku nool walaalihiina oo innamal mu'minuuna ikhwa walaalka waxa weesh salaadad aadin waxaad u baxaysiin masaajidada aadin waa cibaadaysanaysiin intaas waxa weeye walaalihiina rafaaday ee koonfurta aha ee adinka oo maskaxdii ah 7 weeye juqraafiga Soomaaliya marka la fiiriyo number 7 weeye waa number 7 adinka oo madaxiya maalinta ka go'deen masiibadii ku dhacday 24 saac la qarxinaya dhibic wixii hatta haduu anaga dibkii caamka aha ee aad ka tirsanaysiin dawladda dhexe haday baxday walaalayaal walaal baa noo baxay waxa noo baxay Mooriyaan Gareey waxa noo baxay waxa aad ogeydeen waxa noo baxay nimanka aad u jeedin 24 saac nala qarxinaya waxaan idin leeyahay walaalayaal noo naxa waxaan idin leeyahay ismahadinina waxaan leeyahay taariikhda wax ku qaata waxaan idin leeyahay Soomaaliya sanaag iyo inta aad u waxaynaysiin wax dhibaato ka weyn oo baaxad leh oo wadnihiina ku faafaysa ee cadow soo jireeni caruurtiina af Soomaaliga la barayo diintii la barayo juqraafiga wadankiina la kala barayo idinku faafaya jaamacadaha idinka dhaxdhistay aad ogtiin muqaabaraad idinku dhaxsamaystay walaalihiina dariska idin ah waxa la idinku faaniyaa inaad garasho badan tihiin dagaalka xarbiyeerka joojiya dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxaan abbiin idin kaga ahay walaalayaal inaad joojisaan Cabdiweli waxaan u sheegayaa oo aan marqaati ka ahay Cabdiweli caleemasaarkaagii media laygama arag laakiin waad ogtahay ilaahayna waa ogyahay inaan fadhiyay waxaan uga soo bixi waayay laga heeso la qaado lagu guubaabinayo Somaliland iyo Abwaan aan jecelahay ayaa afka furteen oo la yiri Soomaaliya sanaag waa la gumeystaa markaan arkay meesha uu midiyay la sanayso ayaa media iska gaabiyay waxaan u baahan hamigaagu inuu ka weyn yahay Puntland waxaan ogahay aqoontaadu inay ka weyn tahay waxaan abbiin idin kaga ahay oo aan idin ka rabaa macna mala walaalka miir naag mala magaalada labaduba markay ka marshaan noodka iyo noolka lama moodo inaad maalin qura meel ku kulanteen adiga oo miiga la sheekaysan adiga wax magaratada la sheekaysan midee رئيس الوزراء تومرتي مدحويناد والله ربطا وكل رمايو بدبادة Soomaaliya hadii la wadalo idmo waxaan aaminsanahay laba Cabdiweli iyo gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari inay tahay hadii Ilaahay Somaliland inta noo soo hamiyo midnimada ay qaataan oo maanta ayaga xaq shar gumaysa saareen ay Ilaahay noo soo hamiyana iyagana wax badan baan ka filaynaa sababtu tahay saddex ayaga xumaan isku raacdo waxaan ku leenahay ha qaadan reemiga colaadooda waxaan idin leeyahay colaada walaalayaal joojiya walaalayaal dalka waa la qaadanaya wallahi wadanka waa la qabsaday in daadka isqodob la yiraahdo lagu qaatay wallahi inuusan kuwa maamulaya gacanta ugu jirin wallahi inaad ogtihiin shacabka ha isku dhameynina iqra kitaabaka kafaa binafsika al-yawm alayka maalinta ilka la idin dhigo qiyaamaha maalinta ilka la idin dhigo ummadda ilaahay waxa la hortagi lahaydeen maanta ku kaalmaysta siyaasadda aad maanta haysatiin Cabdiweli iyo Axmed Maxamuud Siilaanyo waxaad kasbi kartiin inaad SWL noqotiin 60 inaad noqotiin Soomaaliya inaad ku soo celisiin bale hadaad idinku isku soo goryo noqotiin ee aad maanta Soomaaliya sanaag aawadeed isku baabisiin annaga ilaahayna way kugu caroonaya shacabkana intii la rabay ahayd annaguna inta ooyaysan ka mid noqonayna Allahumma ballaqtu waan idin sheegay waan idinka codsanayaa waxaan idinka rabaa dagaalka maanta inta ka dhacay shalay Soomaaliya sanaag kuma faraxsanin Somaliland ay godobtii shalay laga galay maanta ha sameeynin wax diiday oo wadin wax kale ka doorbiday wixii doonayaan jirin baa
لير هذا الشرع عدالة درك قيلسين ما أنت عدالة درها سميننا هديك هو معمل كشجرة يعني كلا بقينا أنا سياسي ما يديك جوجي أنا وحنا هاي الله سبحانه وتعالى ما أنت هرتجو وحي أن وحن وأركا إلى ملك تيدي بدح آتين وحن بالله ولا ليال وحلقة لبدي إنه واحد كو عقلك صومالي واحد صومالي وقي ما يسمعين إلى تين ماشي السياسة ده عقلك صوماليات إلى تين سياسة ده إلى دكوا هو الرئيسين إلى تقانين وحن نقعد سنة يا إن تلا فريستو بوتلاند يا سوماليلاند أي حل وحكوا هديان أنا حبض راو بيكور بي مركز يري برده كفير واحد اللي يقوم ما هنا واحد دي دجال وشرف ليه هدي إدي كديد ما يكداد ما شرف ليه هاي وركوفرت كفيرية وردي بعد يرتاح جرينكا ولا ليالو دبا نجيل منا ولا ليالو من دلي من لو دلان داود دلينين ورمين الدلي من لو دلان داود دلينين وروح أنا من قعد سنة يا اتقوا الله ورلاه يبغى من ماذا نكون واحد يكون متدا أنت أيام